Waa maxay farqiga u dhexeeya Forever Living Products International iyo Tiens? Su'aashani waa su'aal dad badan oo cusub ayna weydiiyaan, markaa waxaan go'aansanay inaan si faahfaahsan uga jawaabno. Hal-dada iyo aas-aaska shirkadda Forever Living waxaa la aasaasay 1978, waana shirkad ka mid ah kuwa ugu faca weyn uguna kalsoonida badan warshadaha caafimaadka iyo qurxinta. Tiens waa shirkad aad uga yar Forever Living, mana laha sumcad iyo raad raac la isku halayn karo sida Forever Living. Habka iibsiga iyo qaybinta alaabta. Forever Living waxay kuu oggolaanaysaa inaad alaabteeda ku iibsato jumlo iyo tafaariiq, taasoo fursad kuu siinaysa inaad dukaankaaga dhigato ama si toos ah uga iibiso macaamiisha. Tiens way xadidaysaa iibsashada jumlada. Aanad alaabteeda jumlo ugu iibsan karin si aad dukaankaaga u dhigato, taasoo yaraynaysa xorriyadda ganacsigaaga. Qaabka dakhliga iyo boonuska. Forever Living waxay leedahay nidaam cad oo fudud oo si sahlan loo fahmi karo. Forever Living waxaad ku dhisi kartaa hal lug ama hal koox oo xooggan, adigoo weliba boonas iyo dallacaad ku heli kara. Xitaa haddii aad hal lug xoog leh leedahay, waxaad heli kartaa dhammaan dhiirigelinta shirkadda. Tiens waxay leedahay nidaam jahawareer ah oo aan cadaalad ahayn. Haddii aad hal lug ka samayso $100,000 halka lugta kale ay daciif tahay, wax faa'iido ah ka heli maysid $100,000 ee aad xaq u lahayd. Taas waxaa sabab u ah inay Tiens ku qasabto inay labad lugood si siman u shaqeeyaan si aad boonas uga hesho, taasoo ka dhigan in dadaalkaaga oo dhan uu noqon karo waxba haddii mid ka mid ah lugaha uu daciifo. Qaabkan waxaa loogu talagalay in shirkadda ay faa'iido ku qabto iyadoo la dhibaataynayo kuwa hoos ka shaqeeya, taasoo ka dhigaysa mid aad u adag in lagu guulaysto. Gaadhista caalamiga ah iyo suuqa. Forever Living waa shirkad Maraykan ah oo si sharci ah uga diiwaan gashan dhammaan qaaradaha adduunka. Waxaad alaabteeda ka heli kartaa dalal badan oo ay ku jiraan Yurub, Waqooyiga Ameerika, Bariga Dhexe, Australia iyo New Zealand. Tiens lagama heli karo suuqyada waaweyn ee kor ku xusan. Tani waxay aad u xadidaysaa awooddaada ah inaad kobciso oo aad balaadhiso ganacsigaaga caalamka. Sidoo kale, xaqiiqda ah in Tiens laga mamnuucay ama laga xadiday dalal badan waxay keentay shaki ku saabsan sumcadda shirkadda iyo badqabka alaabteeda. Soo jiidashada macaamiisha iyo aragtiyaha dadweynaha. Forever Living waa sumad Maraykan ah, dadka badankiisuna waxay aaminsan yihiin in alaabta Maraykanka lagu sameeyo ay tahay mid tayo sare leh oo lagu kalsoonaan karo. Tani waxay ka dhigaysaa iibinta iyo suuqgeynta mid sahlan. Tiens waa sumad Shiineys ah, waxaana caadiyan loo arkaa in alaabta Shiinaha laga keeno ay tahay mid tayo xun ama khatar ah. Tani waxay dhibaato weyn ku noqon kartaa suuqgeynta iyo iibinta alaabta Tiens. Noocyada alaabta iyo kala duwanaanshaha. Forever Living waxay bixisaa alaabo kala duwan ku fidsan qaybaha hoos ku xusan oo qurxinta iyo daryeelka maqaarka, oo maaraynta miisaanka, oo alaabta shinnida, oo daryeelka shaqsiga, oo cuntooyin caafimaad iyo nafaqo. Kala duwanaanshahani wuxuu siinayaa macaamiisha iyo iibiyaasha fursado kala duwan oo ay kala xulan karaan. Tiens badanaa waxay diiradda saartaa oo keliya cunno kaabiyo, food supplements, iyada oo aan lahayn kala duwanaansho badan. Tani waxay yaraynaysaa awooddaada ah inaad gaadho macaamiil kala duwan. Soo koobid guud. Forever Living waa doorashada ugu fiican qof kasta oo doonaya inuu bilaabo ganacsi, maxaa yeelay waxay leedahay qaab dhismeed cad oo fudud, suuq caalami ah, alaabo tayo sare leh, iyo guul la xaqiijiyey. Sidoo kale, waxay bixisaa damaanad qaad 3 maalmood ah dhammaan dalalka ay ka shaqayso, taasoo muujinaysa kalsoonida shirkaddu ku qabto alaabteeda iyo qancinta macaamiisha. Tiens waxay leedahay nidaam adag oo cadaalad daran, suuq xadidan iyo sumcad shaki leh.
sidaas awgeed Forever Living waa doorashada ugu wanaagsan uguna kalsoonida badan ee lagu dhisi karo ganacsi guulaysta waara. Sidaas awgeed ma aha laba shirkadood oo marna la isbarbardhigi karo. Fariintani waa jawaab soo noqnoqotay nooga timid macaamiisheena, mana aha wax shirkad ama shaqsi looga dan leeyahay. Mahadsanidin.